ذائقة الموت. maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad ayaa maanta xukun dil ah ku riday kuna fulisay askari ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed kaasi oo ahaa Bashiir Macalin Maxamuud oo maalintii shalay magaalada Baydhabo ku dilay marxuum Cabdiraxmaan Mataan Maxamed oo kana tirsanaa ciidanka xoogga dalka. goobta uu dilka ka dhacay waxaa goobjoog ka ahaa ehelada labada marxuum, saraakiisha amniga, odayaal dhaqameed iyo abaandulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee qaybta lixdanaad. gaashaanle sare Faysal Cabdullaahi qaar ka mid ah marqaatiyaasha goobjoog ka ahaa waxay caddeeyeen in Bashiir Macalin Maxamuud uu ahaa ninka dilka geystay si bareer ah, kadib waxaa lagu fuliyay qisaas dil toogasho. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وصحبه أجمعين. قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. إلهي قرآن كل شيء إن قصاصته أي تهي نرشة وإلهي وحوري نرشة أي يفوز عن قصاصته يا أولي الألباب تدك عقل قلهم مركا قصاصته وحواي قف مسلم وسكر ضرر كدله حق ضرر كدله إذا وحا واجب كل قريسه إنه قصاص ناس مره marka waxa way qisaasaasi marka asagana dib dhaaf ay u noqonaysaa. marka maanta saa ogtiin halkan waxa ka dhacay xaq oo qisaas ah oo lagu fuliyay nin qof kale walaalkiisa dilay. ilaahay waxa uu rajeenaa in qisaasaas dib dhaafkiisa ay u noqoto. meesha waxa la rabaa dawladda ka jirta, dawladnimada ka jirta, sharciga ka jira, kala dambeynaa jirta. marka waxa way koonfur galbeed waa dawlad hana qaaday oo tis qaaday, marna lama aqbali karo qofka inuu sharciga gacmaha ku qaato. kana digtoonaadaan in maxay ahaaytay dil uu dhaco ama la isku xadgudbo. marka waxa la rabaa in sharciga la ilaaliyo. dadka maaragtay koonfur galbeed ciidamada qalabka sida nooc walba yihiin, qoryihiina ka adkaada, hubkiina ka adkaada. haddaad si qof sharci dad jiilkaas ku sugaya sharci dawladnimada maaragtay wada deeqda sharcigaana naga sareeyo. cid markaas laga yeelayo ma jirto inuu qof intuu iska dilo iska noolaado. koonfur galbeed waxa uu taala ninkii qof dilana waa la dilayaa.